السلام عليكم صحابتي وين السلامي يوتيوب ka daawanaysa waliba afka dhafan aad ku cusubta subscribe saar maanta waxa idin wada qiso ku dhacday laba nin oo saaxiibo ah oo la dhihi jiray Saalim iyo Camaar hadaba labada nin waxay degnaayeen meel kayn ah oo guri bay ku lahaayeen waxay ka shaqeyn jireen maalinkii habeenkii bay soo ugaarsan jireen neefka soo ugaarsan ama xayawaanka bay maalinkii waxay tuulo u yaro u dhow way geen jireen sahalka hargeysa hilibkiisa baxaga ku soo iibin jireen Soomaali sida caadiga ah way soo shaqeysteen way iska soo noqdeen cabaar bay banaanka ku caweeyeen shaax bay iska karsadeen cabaar markay joogeen iska xaroodeen way seexdeen maalinka waxay dhaheen maanta maadaama soo shaqeysanay caaw tagi meen waxba ugaar doonan meen waa iska seexanaynaa habeenkii sina wada u seexdeen maalinkii kale soo kaceen maalinkiina saas ku dhamaaday habeenkii xigay labadii nin habeenkii way israaceen ugaarsigii bay tageen waxay soo ugaarsanayeen oo soo heleen markay soo noqdeen Saalim iyo Camaar baa wuxuu arkay geed meesha ah wax mugdi soo taagan oo kala bahal markuuna xayo ku yiri Saalim waxa mees soo taagan ay eegeen Saalim waxba way arki waayeen waxba ma hayna keen bay way iska socdeen way tageen gurigii yaraa bay tageen xaafadoodii markay cabaar joogeen ay shaqadooda iska wateen بعبار ماشي شاحي وحو يري بالكي سالم بعمار وحو كيرو عمارو دبا نوسي شديايه ام بي اسك سارن شاحي وحو حسن اورد عيلك حقا نو دو بيا كسو دامي هيب عمار و تغي و سوالay markuu ceelkii aaday u dhawaaday waa hal mar baa qaylo meel ka maqlay keenta ka imaan socod bahal oo kale soo eegay u dhaqaaqay markuu meesha aaday sabahalka weynaayo baa uu arkay meesha soo taagan waxa arkayna ninkii Saalim ahaayo meeshii dabka shiday cabaar buu sugay ninka Camaar ah waxa ku dhacay buu isleeyahay si uu sugay markuu cabaar imaan waayay baa tooshkiisa soo qaatay uu ka dabayay meesha ceelka iyo gurigan wax yar isku jiro markuu waxba uu ka arkay meesha asigoo yaaban buu cabaar dhinacyada tooshis ku fifiyay uu qaylay war Camaar kumee hore dhinaca keento in yar soo galay uu soo socday wuu naxay wuxuu arkay meedka Camaar oo meesha yaala iyo bahal weyn oo ku furrucunaya naxdiin yaab wuxuu sameeyo garan waay bahalkii ba soo eegay markaa wuxuu isku difaacmo wadan uu soo cararay orod buu soo qabtay ninkii bahalkiina uu soo dawarta guriga wax yar buu jiray markii gurigu galay hoosta ka soo xirtay asigoo naxsan wuxuu sameeyay garan bahalkiina uu gudul wareegayo marba shanqar uu meel ka maqlayo Saalim hal mar asigoo yaaban oo meel lagu iimaanay garan la hal mar bahalka ku soo booday darbiga waxa weeye guriga waa qorsaad ku sameeyay gacan iyo waji buu kala soo baxay saantu naxay buu faasho dhawaab soo qaatay uu ku dhuftay war buu gaarsiiyay bahalkii uu cararay markaas ku tagay ninkii uu badbaaday ilaa habeenkii dhan amuusan seexan uu soo jeeday markii maalinkii noqotay alaabtiisa soo qaatay dadkii tuulada uu tagay uu soo sheegay wixii wax dhacay niman ba soo raacay ninkii Camaar ah markay u yimaadeen meeshii meedkiisa wixii waayeen bahalkii ba malaha si laastay Saalim wuxuu go'aansaday inuu magaalada iskaga tago meesha uu ku gaarsan jiray oo xagga tuulada iska aado saasna qisad ku dhamaatay falada ka heshaan like saara